ثلاث كفارات بيقول عليه الصلاة والسلام صدح الرمود دنبيذي كادقان دنبيذا إنه قال إنه ما أنت يودن حن محا دنبيال محا حيالها إنه كل عينه صدح ذا الرمود هداد بتصتو وعبادوين إلهي لولي ما عبادوين وي هداد بتصتو ويدقيان دنبيذا ثلاث كفارات كفارة قدوي إسباق الوضوء على المكاره متكوه الريا ويسدا أول هجاجيو ويسدا وعباده آدي آد مهم قفك مؤمن كان أما قواد مؤمنة دانا وحا النبي عليه الصلاة والسلام كنت المام إنه ويسدي سهد يجر أي دورنتهاي أفر إلى باتنك ساعة لا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ويسد ما دوره ما إلاليه إلا مؤمن مويا قف مؤمن مويا منعنا منافق ما إلى الإنكار ويسد هذا يجر إنه ظاهر هذا ديار يهي قرآن بآخر سنكرا وعبادة سنكرا إلهي بحس كرا هذه غير أتمادنا ويسو قبا وظاهر سيه الحمد لله رب العالمين وديار marka taas waxa ka dhalanaysa markasta oo weysadu ka jabto ama aad xaajo gudato waxa wanaagsan inaad weysaysato weysada raaciso adan weysada aan ka soo bixin baytul mayga ama musqusha ama meesha lagu weysaysto adoo weysa qaba mooyaan weysadana inaad dhamaystirto khaasatan waqtiyada dadku ka caajisayaan ama qabowga ama kulaylka badan ay tahay oo weysada qofku dhibsanayo ajarkeedu wuu sii badan yahay markaasoo kale ku sii dadaal sidaa waqtigan ku jirno kala qaboobaha weysadu marka waa kafaara gud mar walba aad weysaysato dambiyadu way dhaqaysaa indhahaaga wajigaaga gacmahaaga lugahaaga wixii dambi galeen bay dhaqaysaa isbaaq alwudu'i ala almakari wa kathratu alkhuta ila almasajid arrinka labaadna waxa weeye tallaabooyinka masaajidka loogu socdo tallaabo walba dambi bay midiridaysaa midnaha darajay ku qaadaysaa marka masjidka inaad mar badan u socoto subax iyo galab u sii socoto waxa weeye dambi dhaaf bay keenaysaa ha ka wahsan midda saddexaad intidaaru salaati bacda salaa salaad baa tukatay salaad kala sugaysa maqrib baa tukatay cishaa sugaysa oo dhereeraysa oo intii aad sugayso ama quraan baad akhrisanaysaa ama dhikriga ilaahay baad ku jirtaa ama waxa weeye salaadii baad dhereeraysaa sugaysaa goorma salaadii imanaysaa waad dhowraysaa waqtigeedii baad ilaalinaysaa weysadeedii baad ilaalinaysaa marka salaad baad sugaysaa salaada sugitaankeedaas waxa weeye dambi dhaaf weeye haddaad masaajidka fadhidid ama meesha cibaadadaad ku cibaadaysatay gurigaaga xataa gabadhu ay fadhidana dambi dhaaf baa socda dambi qaribka meesha ku tukatay salliga ku tukatay ay ku sugayso ku adkaarsanayso oo ku cibaadaysanayso quraan ku akhrisanayso ilaa salaadii kale ay ku tukato cishaha ama casarkii ku tukato maqribkii ku sugayso ilaahi subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf buu uga dhigaya saddexdaas arrimood waa saddex arrimood oo dambi dhaafka keena waxaynu niri isbaaqu alwudu'i cala almakaari وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يا كسو عليناي كو مدة كواد محيطها ويسدا الله إلى عليه أو لا دميسترو أو دتك قاربة ويسدا بوبسية أو ماله إلا ربعين إلا دقيقة عند غير ويسدا إن دميسترتو خاصة وقت القبوبة هي مدة لبعضنا صلاة الصلاة كسوكتو مدة صدحاتنا مساجد كو عدو صعوتهم taas waa saddexdaas waa kafaaraat buu nabiga kaleey salaatu wasalaam kafaara gud way oo dambiyo badan baynu leenahay laakiin maalin walba meeqa jara weysaysanaysaa midalan shan salaadood horta haddaad mid walba u weysaysato waa shan salaadood markastoo aad musqusha gasho haddaad 24 saac shan jeer oo kala gashana waa shan goor oo kaleeto haddana aad weysaysatay marka 10 goor maalintii haddaad weysaysato ama ka badanba habeenkii iyo maalintii الحمد لله رب العالمين دنبيه بدن با إلهي سبحانه وتعالى كاغا دقيا دبيعده u dhamaysta biyaha ay raacaya dambigu saddex arrimood jira markii dambiga laga dhaqo waxaad u baahan tahay darajaad baa lagu tartamaa aakhiro qof walba xageebu darajadiisu joogtaa ya boqolkiiba 20 boqolkiiba 10 30 40 50 boqolkiiba 100 jannadu waa 100 darajo inna fil jannati 100 daraja bu nabi alayhi salatu wasalam يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات علم درجات بو إلهي كركو قادة تذكر وكسر
darajooyinka maxaa lagu kasbadaa saddex arrimood uu sheegay nebigu calayhi salaam waana saddex fudud oo rag iyo dumar la samayn karo midda koowaad bal qabso ifshaa'u salaam salaanta badi dadka walaalaha ee muslimka qof taqaan iyo qof hadan aqoon assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum seelaya maxaa lagu baryay baryidinta weydiinta booqashada warsiga telefoon ku warasatay ama si toos ah yacni dadka walaalaha muslimiinta inay isbooqdaan isziyaartaan isa salaamaan khaasatan dadka wax u dhexeeyaan dee qofka walaalka ama walaasha wax kala dhexeeyaan waxaa wanaagsan salaanta ku bilowdo salaantu waxay keenaysaa maxab awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum dadkii hadda cadaawad iyo xin iyo xasad iyo waxba kala gelaya waxaasoo dhan waxaa dhaqa salaantaa dhaqda qofaad kala go'deen oo muddo kala maqnaydeen haddaad salaanto ama wacdo ama soo booqato wuu ku farxi malalka qaarkood waxaa la yaaba inuu is yidhaahdo qofkan hebel ama heblaayo kuma soo booqan jirin kuma soo wici jirin maxaa dhac maanta ma dhagar buu wadaa ma wax kaluu wataa ma dan kaluu leeyahay maya dan kalena adiga ma lihid ilaahay dartiisun baad u salaami ilaahay dartiisun baad u wici marka salaantu waxay keentaa maxaba iyo kalgacal adigana ajar bay ku siisaa darajaadna kor bay kugu qaadaa labada kala xanaaqsan ama kala caraysan ama isgooyeyna kan salaanta bilaaba ayaa darajo sarreeya oo darajaad kor loogu qaadaa marka ha dhihin aniga maa dulliya aniga maa doonaya aniga maa wax ka raba aniga maa wax baryaaya aniga maxaan u wacaya iyada heblaaya haddaan isoo wicin aniga maxaan u wici maxaan ugu salaami maxaan ugu tegi maya adigu ilaahay baad la xisaabtamaysaa darajaad baa bankigaaga ku dhacaya aakhiro darajaad ku dhacaya waxba qofkaan ha eegin adduunyada marka salaantu waa darajaad afshu salaam buu yidhi faafiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wa atcimu aطacaam qodobka labaad oo darajooyinka lagu kasbadana waxa weeye cuntada la quudiyo dadka cuntada sii miskiinka faqiirka qofka waddada maraya martida man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu martida waa la karaamayaa masaajidka waa la geeyaa dadka baahan dadka aan guryaha lahayn dadka doobabka ah oo guryaha aan wax loogu karin oo iska gaajaysan masaajidka laga yaaba inay yimaadaan casho iyo sab hadday jirto habeen walba isa soo xaadirinayaan salaadiina waa tukanayaan ma garanaysaa marka waxyaalaha cuntada ha la quudiyo ha la badiyo buu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaad darajaad baad ku kasbanaysaa cuntadu aad iyo aad bay u ajar badan tahay qodobka saddexaad oo u dambeeyana waxa weeye alsalaatu billeyli wannaasu niyaam waa qodob dadkoo dhamme aanay kari karin laguna tartamo inaad habeenkii tukato marka dadku markay hurdaan marka wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salatu wasalaam salaataleylka salaada la yidhaahdo oo salaadaha tatawuca ama sunnada ugu fadli badan oo ugu wanaagsan ilaahayna dadkeeda jecel yahay qof walbaana aanu samayn karin iska yaalyaal iyo istustusna aan ahayn oo habeen mugdiya qofku qolkiisii iyo gurigiisii u joogo ayuu ku tukanaya maxaa ugu yar maxaa ugu weyn laba ragco hadday noqoto xataa 3 ragco 4 5 6 intay noqotoba awooddaada intay tahay ha ka qadin weeye macnuhu wasalaatu billeyli wannaasu niyaam dadku markay hurdaan haddii aad habeenkii isrogto amaad baraarugto kac weysayso 2 ragco tuko ilaahay bari waa waqti wanaagsan khaasatan habeenka waqtigiisa u dambeeya thuluth al-akhiir min al-layl ilaahay subxaanahu wa tacaala habeen walba thuluthka u dambeeya qaybta u dambaysa habeenka ayuu yidhahdaa yaa i weydiisanaya dembi dhaaf anu dembi dhaafaa yaa waxi weydiisanayoon siiyaa yaa naxariis weydiisanayaan siiyaa yaa ilaahay subxaana jannadii ay weydiisanayaan siiyaa marka waa waqtiga dadka wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala ay baryaan oo ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha u horsadaan taasna wuxuu leeyahy nebigu alay slam waa darajooyinka la isku dhaafo weeye aakhiro markaa saddexdii waxay noqotay ifshaa'u salaami wa itcaamu aطacaami waasalaatu billeyli wannaasu niyaam axaadiis badan buu nebigu calayhi salatu salaam ku tilmaamay markii ugu horraysay oo madiine uu yimi nebigu calayhi salatu salaam dadka saa u soo urureen wuxuu yidhi ayuhannaas dad yahow dhegaysta waa hadalkii ugu horreeyey afshu salaam wa atcimu aطacaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam jannadaad nabadgelyo ku gelaysaan saddexdaa haddaad samaysaan waa markii ugu horrayso madiine uu imaado dadka saasuu u sheegay marka saddexdaa arrimood ayaynu isku boorinaynaa saddexdii horena waxa weeye kafaara gud oo wixii dembiyaa inay naga dhaqdo saddexdaana inaynu
ku kasbanno darajooyin inaynu ku kasbanno. waqtigu waa dhow yahay, roobna waa soo socdaa, salaadii maqribna waa dhowdahay. haddii aan cid kale iga dambayn waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa kulankan galabta aynu isugu nimi masjidkan barxaddiisa aan isugu soo baxnay reer Komarok, ilaahay subxaana wa tacaala kulan barakaysan inuu ilaahay ka dhigo, ilaahay naxariistiisa iyo sakiinadiisa inuu ilaahay kulankan ku soo dejiyo, malaa'igtiisa iyo naxariistiisa iyo sakiinadiisa inuu ilaahay nagu soo dejiyo. ilaahayow inta halkaa isugu timi ee khayrka soo doonatay yar iyo weyn, ilaahu naxariiso, ilaahu naxariis gaara ku soo deji, ilaahu naxariis gaara ku soo deji, ilaahu naxariis gaara ku soo deji, ilaahu qalbiyadayada iimaanka ku sug, ilaahu qur'aanka qalbigayaga ku xeji, ilaahu dembigan iyo dembiga waalidiinteenba ku dhaaf, naxariistaa gaara ilaahu dembigan iyo dembiga waalidiinteenba ku dhaaf. dadka xanuunsan ilaahu caafi, dadka dhibaataysan ilaahu dhibka ka qaad, kuwa kurbaysan ilaahu kurbada ka qaad. qof walba waxbaa niyadiisa ku jira, rag iyo dumar, gabdho iyo wiilal, yaryar iyo waaweyn, maamooyin iyo aabbayaal, qof walba niyadiisa waxbaa ku jira. ilaahu waxa niyadiisa ku jiro khayrka ilaahu sii, wixii khayr waa ilaahu sii. dad baa dad ka xiran yahay, maamo wiil ka xiran yahay, ilaahay ha u soo daayo. dadka wax ka xiran yahay, cidi ka xiran tahay ama xabsi kaga jirta, ilaahay xabsiyada ha uga soo daayo. ilaahay ha u naxariisto, faraj allah ha u furo, kurbada allah ka qaado. qof walba waxa uu jecel yahay niyadiisa ku jira allah ha siiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigan iyo dembiga waalidiinteenba ha dhaafo. qur'aanka kariimka ah rabiica quluubina allah ka dhigo. allahuma ajcal alqur'aana alcadiima